Arxan la'aantu waa mid ka mid ah waxyaabaha lagu qeexo qabiilaystuhu. Waa qof lagu yaqaano in ficilkiisa uu dhaafsiisan yahay Soomaalinimada iyo tan Islaamnimadu. Gaarisa dilaayaal fara ku tirisa ayaa magaaladan ka dhigaya inay tahay mid shacabka ku nool ay bini'aadamnimadii ka guurtay. 24kii saac la soo dhaafay waxay u ahayd murugo iyo tiiraanyo kadib markii la aasay in ka badan 10 qof oo si ku talagal iyo naxariis daro loo dilay. Tani waxay sababtay in maanta la kala garan waayo midka ku dilayo iyo kan ku badbaadinayo hadiiba dad isla dhashay ay maanta isgumaadayaan. Qaarkooda ayaa ahaa dhalinyaro iskuuleey ah. Waxay ahaayeen ubixii gobolka u soo baxayay kuna hanweynaa inay dadkooda wax u qabtaan. Dilaayaasha lagama daba tago, dibna looma ciqaabo. Waxaa magaalada soo buux dhaafinaya gacan ku dhiiglayaal aaminsan in ninkii hal dila uu 5 dili karo. Inkastoo laga dhiidhiyay dilalkii fooshu xumaa, haddana shacabka Gaarisa waxaa sugaya waddo dheer haddii si duuduub ah aanay farta ugu fiiqin dambiilaha, dilaagana la xukumin, dulmigeystahana la xirin, cadaaladna loo helin kuwii iilka la dhigay. Waa in reer Gaarisa ay ka hortagaan dhowrka qof ee doonaysa inay laayaan dhowrka kun ee qof ee magaalada ku nool. Dhalinyarada ayaa saacadihii la soo dhaafay u muuqday inay meel fog iska taageen dhacdadan, isku duubnina muujiyeen. Waa inay halkaasi ka sii wadaan gaashaankana ku dhuftaan kuwa isku dayi doona inay ka dhigtaan xaabo lagu shido waxyaabaha iminka socda.